maanta waxaan ay bishaaro kuwii godka u galayay hadaaga ay ka soo jeedo boqol baa ku dhinta tafadhiig baa la ilaaha wallahi kama dul qaadano madaxweynaha ku dilaa ilankiisa ku dilaa kala dhashaan ku dilaa wasiirkaan ku dilaa koob iyo 10 jeer baa maxkamad la keenay ilanta oo markii wax loo waayay hadana la yiri wax kale oo gacan ku rimaysa aanu raadinaa dib inuu ugu celiya kicin baa la ilaaha xarig maaha wallahi waa kicin ee xarig maaha bilaa waxa ka dhinta faraskaas biyo af ka qaaday inantu kuwaaga la mid tahay kuwa gurigaaga ku xinaysanaya la mid tahay haddii sii day weydo faraskaas intuu biyo af ka qaadayo ayaa bila ka dhigay dacwadii u dambeysay Bushaare Cali Baanday waxay noqotay 10 bish waanu dhageysanaynaa go'aan baanu ka qaadanaynaa go'aanka ka soo baxa haddii madaxweyne nooc talmi waayo madaxweyne adna tamarta adna taladay haddii ficilkaasi isbedel waayo waxaan ka bixinanaa oo waxna ka noo yaala waxa laga hadlayaa ujeedka aan ka hadlaynaa waa la sheego waa inanta xaq darada ku xidhan inantaas Bushaare Cali Maxamed waxay imika xidhan tahay 3 bilood 4 bilood oo wax yar marka hore ee la soo qabtayna afduub baa lagu soo qabtay marka dambe hadii xukuumaya ay xidhan tahayna waxay ku xidhan tahay afduub madaxweyne warka tuure waa laga hayaa tan iyo email waxa weeye waxaanu haynaa warkiisa oo aanu ognahay oo haynaa inankaaga inuu inantaa soo afduubay oo imika uu afduuban tahay markay sidaa tahay qofka bini'aadmigii damiir buu leeyahay dadka aanu ka soo jeednaana iyo hadii xukuumayo ummadda aanu nahayna ummad sidaa loo galo ma nihin marka aynu run ku wada hadlayno ma nihin sababtoo ah 3 koob iyo 10 jeer baa maxkamad la keenay ilanta oo markii wax loo waayay hadana la yiri wax kale oo gacan ku rimaysa aanu raadinaa dib inuu ugu celiya kicin baa la yiraahdaa xarig maaha wallahi waa kicin ee xarig maaha waxa weeye waxaanu ku leenahay madaxweyne waxa la yiri ragintu dhulka kala jiro yu dhowris leeyahay intay nabadu ku dhowdahay yidhuu macaan tahay hadii la isdhex galo waa dagaal waxa dhabooba madaxweyne inanta wax lagu leeyahay ma jirtee sii daay oo xorriyadeedu u soo daa hadii aadan soo daynayno oo ay afduubnaato inankaaga waxa weeye wixii ka waxaan lagu farxin oo la mahadin yaa ka dambayn doona wasalkan waxa taagan ningarboodkii iyo duqaytidii bariga burco ama habar jeclo aad iyo aad baanu saaka u kacsan tahay dareenka saaka isu keenay intaa aanu afkooda ku hadlayno waxa weeye inantaa 8 bilood iminka ama 7 bilood jeelka ku xidhan ma aha habluhu ma aha ragoo kale ma aha ragga ka dhintana waa laga samraa ka xidhanna waa la sugaa habluhu ma aha ragoo kale waa kuwa dhashay ama waa kuwa ku dhalay waxu ku dhintaa raggu maantana may tiri iyo marta dumarka iyo maantana waxaan leenahay mudane madaxweyne xaqaana u baydhimayno adigaan kula hadlaynaa inantaa siida haday dambi leeday siida hadaanay dambi lahayna siida hadaad siida in weydo waxaanu leenahay wuxuu yiri Muuse Yuusuf habar jeclay bil qiraa gali baanu leenahay 150 dambi baanu dul qaadanay aanu u samirnay aanu u dul yeelanay maanta inay xidhnaadaan hablaha iyagu xidhnaadaan oo caruurtayadu xidhnaato oo ergadayada la ajiibi waayo 10 jeer ama koob iyo 10 jeer baa lagu hadlay mudane madaxweyne la ajiibi waayo daruur tagi weyday iyo digniin tagi weyday labadaba dhacaankooda waa la arkaa haddaanu maalin walba soo hadallo oo la aqbali waayo oo la sii dayn waayo oo shacabka loo tanaasuli waayo kuwii ku soo doortay aad u tanaasuli weydo kuwa kula hadlaya u tanaasuli weydo daruur tagi weyday iyo digniin tagi weyday labadaba dhacaankooda waa la arkaa hadaaga ay ka soo jeedo boqol baa ku dhinta tafadhiig baa la ilaaha wallahi kama dul qaadano madaxweynaha ku dilaa ilankiisa ku dilaa kala dhashaan ku dilaa wasiirkaan ku dilaa kooran mayna maanta waxaasaan yeelanaa waa ergadayadii u dambeysay bilaa waxa ka dhinta faraskaas biyo af ka qaaday inantu kuwaaga la mid tahay kuwa gurigaaga ku xinaysanaya la mid tahay waa inan waa caar xaqaana nala kama maro waxaan ku sheegayaa siida inanta si degdeg ah siida haddii sii day weydo faraskaas intuu biyo af ka qaadayo ayaa bila ka dhigay bariya dambe oo aanu gelayna iyo gorgorta dambaanu ka gelayna ma jiro ina ka xidhay ay u xidhan tahay deegaanka reer bay u xidhan tahay oo ma xidhna dawladda
inanka ay xidhan tahay in maadirradina inay halkan noo seexdaan waxa weeye inantayduna ay xabsi ku jirto ma qaadan doono nooma cuntanto nagamay dhaadhicin mudana madaxweyne waxa weeye waxaan ku leenahay haddii in badan hadallo qabow odayaal salaadiin nin garbood ay yidhaahdeen maanta waxaanay bishaaro kuwii godka u gelayay uu meel marayay waxa weeye waxay leedahay inuu soo dhicinay dacwadii u dambeysay bishaaro cali baanday waxay noqotay 10 bisha waanu dhageysanaynaa go'aan baanu ka qaadanaynaa go'aanka ka soo baxa hadduu madaxweyne noo cuntan waayo madaxweyne adna tamarta adna taladay inantaasi waa beri waxa caddaatay inay cid gaar ah u xidhan tahay oo inankaaga u xidhan tahay wayna dhibaysaa arrintaasu in badan baanu madaxweyne dul qaadanaynay waxaanu maanta kaa sugaynaa si degdega inaad inantaa u sii dayso markhaatiyadii baanu haynaa inay inankaaga u xidhan tahay xildhibaanka axmed khaliif baa ka mid ah qaar kaloo aanu xogta haynaa ka mid ah waxaasoo dhan waanu dul qaadanaynay wayna soo kartay waxaanu yeeli lahayn waanu garanaynaa oo kala duwan inantaa bishaaro cali baanday xaqdarray ku xidhan tahay inaanay aan dembi loo hayna waxa kuu caddayna 5 jeer oo aad maxkamadda keentay 5 jeer waa dembi waad u weydi mid labaadna waan caddaynayaadoo inay inankaaga u xidhan tahay waxaan ku caddaynayaa habeen dhaweyto adiguna markhaatigaad futado xafladdii buuga siilaanya waxaad kaga hadashay in inankaagu dadka dhibaad miidiya ka sheegta carruurtaada ubadkaagu ay dadka dhibaan ayaad ka sheegta inankii xildhibaan axmed khaliifna wuu sheegado dhaar buu ku marado maxkamaddana waa ka caddaynayaa buuri sidaa markay tahay dee inankaaga dalku afdubnaan maayo inaad sii dah haddaad sii dayn weydo shaqo kuma lihiin waanagii maxkamadda joognay waxba ku caddaan waaye nimankii qarandumiska ahayd la daba wadayna caddaan waaye iyadiina waxba laguma caddayn waxba laguma hayo inamadaada iyo carruurtaadana dadka ha ku sii dayn adiguna amar madaxweyne ku shaqeeyo midba wuxuu yahay buu yahay waxaanu ka hadlaynaa inantaa bishaare cali baanday oo aanu aragnay inay dulmi ku xidhan tahay oo halkii nala gaadhay reerka iyo iyaduba ay arrintaasi ka gaadhay siyaad barre nama gaadhsiin wey waxaa naga soo baxay inan yar oo aan dowladda oo dhan ka baqayso oo mayqada inanteeri ma dowladda inqalaab ma hanti bay dhacday ma cid bay dabaxday midna aan lagu qaadin oo kiisba aan la madhiyo meel iskaga xidhan waxaa suuqa ku jirto nolol ahaan intaa beensaynay inama yaryaroo ina biixidhaal bay u xidhantay inanta intaa waxaan u jeednay inaan dowladda aanaan iska hor iman inaanaan dowladdan lugaha u bixin meesha maanta wax marayaa nin weliba wuu og yahay uma baahna wax halkaa maanta dhab waxa la saarayey korontaa la saarayey wax ka riixa dowladda orida uma baahna haddaan reerka nahay aad baanu arrintaa uga xunnahay inantaa shuruurlaan ha lagu sii daayo kiisna waa lagu waayay dulucdayadu waxa weeye bishaaro cali waxaanu u aragnaa inay dulmi ku xidhan tahay waxaanu u aragnaa in lagu xadgudbay sharafteeda inannimo iyo muwaadinnimo wax may dilin oo wax may dhicin oo kiis aanu maanta qaadan karno waa hadal ay tidhi waxa ay ku xidhan tahay waa hadal distoorku u ogol yahay oo saxaafadeed haddii aanay sheegin waxa jira aanay sheegin maxay sheegi lahay waxaa lagu xidhay ee ay ku xidhan tahay maanta waa wixii jira ee sheegtay waa xaqiiqa waxaanu leenahay waxaadna xasuusinaysaa sida odayaashii hore u sheegeen maslax siyaad barre iyo camallayntiisii waxyaabaha soo yeedhaya waa la mid taa waanayna xasuusinaysaa waxaanu ka digannaa haddaannu beesha bariga burcannahay waxaan ka digannaa falalka noocaasa ee weliba birmageydada lagula kacayo haweenka ee inanta ah ee aan u qalmin